Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso video ku saabsan sida aad Windows-kaaga clear ugu dhigi lahayd, sababtoo ah Windows-yada qaar ama shaashadooyinka qaar markaa isticmaalaysa boqolkiiba boqol mar clear ma aha. Haddii tusaale ahaan oo kaleeta aad wax qorto kale iyo farta iyo boqolkiiba boqol markaa sida aad clear ugu dhigi lahayd. ugu horeyn waxaad tegaysaa meeshan ay ku qoran tahay start, right click ayaa ku leedahay, waxaad dooranaysaa run markaad dooratid kabacdi waxaad ku qoraysaa reg edit eragaas ayaa ku qoraysaa oo keliya okay ayaa leedahay. meeshan ayuu ku keenayaa, markuu meeshan ku keeno keliya waxaad dooranaysaa kan koowaad oo hadda meeshan buluug aan ka dhigay, kan ka hoose ee ku qoran tahay key iyo current user ku qoran tahay furaysaa falaarta yarista, kabacdi waxaad dooranaysaa control panel. marka sidan u furto meeshan ay ku qoran tahay desktop-ka ayaad click ku leedahay. markan falaarta ma furay expand kuma sameynaysid, kana click ku leedahay. marka meeshan joogto waxaad raadinaysaa file ay ku qoran tahay win8db ay ku qoran tahay, waana kana ujeeda file-ka kaas waaye. hadda meeshan hadda u jeedaan waxaa leedahay right click ku leedahay, waxaa leedahay modify ayaa dooranaysaa. marka meeshan dooratid meeshan hadda 0 ayay noo tahay, adiga waxa 1 ayaa ka dhigaysaa, kabacdina meesha okay ayaa leedahay. marka meeshaas okay dhaadid kabacdi waxaa haddana sii dooranaysaa, waxaa raadinaysaa file ay ku qoran tahay, filekan ay ku qoran tahay log pixel. haddii aadan haysanin sida uu yahay waxaa sameynaysaa right click ayaa meeshan haddana ku leedahay. lacala waa haddii aad filekan meesha ka weysay ku qoran tahay log pixel l capital ah oo yar g p oo capital ah siday u qoran tahay waa waajib. marka haddii aanan filekan haysanin kaba soo qaad ma haysatid, waxaan iska dhigaynaa inaan haysanin, dadka aan lacala haysanan ka hadlayaa. new folder ayaa leedahay, waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay dw, meeshan ay ku qoran tahay 32 kaas hadda highlight-ka aan saaraya dooranaysaa. click markaa dhaadid magacaan hadda meeshan ku qoran ayaa u bixinaynaa. waayo ani haddii aan u bixiyo igama ogolaanayo, sababtoo ah waayo waa haysataa ayuu leeyahay. kaba soo qaad adiga ma haysatid, markaa magaca waxa u bixisay ee ku qoran tahay kan logaas ayaa u bixinaysaa. marka intaas u bixisid hadda kan waa iska tirayaa. kan markaa sidan usoo bixisid aad right click leedahay, haddana modify ayaa leedahay. meeshan hexamal inay ku ahaato waaye, meeshan waxaa ka dhigaysaa 78 ayaa ka dhigaysaa. markaa 78 ka dhigtid okay ayaa dhigaysaa, kabacdina computerkaaga restart ayaa u diraysaa. markaa restart u dirtid waxaa arkaysaa hadda aniga foontigan aan isticmaalayo sida ay clean u tahay, sidaas ayuu adigana kuu noqonayaa. sababtoo ah ciladan update-ka ilaa hadda ma bixiyo, waxaa lagaga baahan yahay si oo manual inaad adiga ku bixiso. markana cashirkeena yaraa koobnaa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. waad ku mahadsantahay daawashadaada. haddii aad ka heshay videogan please subscribe.